SNM iyo SDA waxaan rabay marka inaad faahfaahin isiisid sidii laga dhex bixin lahaa tashuushka iyo dhibaatooyinka aan u malaynayna inuu abuuray taliskii Maxamed Siyaad Barre horta waxa xurgufsan waa xurguf dheer oo xasaasi ah oo in dowlad soo jirtay una baahan in aad looga baraandago lagana fiirsado laguna degdegin waxaana dhamayn karayo oo bixin karayo sidii caadadina u ahayn suudaani oo madiinkii iyo odayaashii oo horta ka wada hadla maxaa la isku haystaa maxay yihiin qolo waxa isbeeysaa in dalka iyadu degantay qolna waxa dalka waligeed waan deganaan jiray jalal reer oo deganay baan inta la isku haystaa intaas in kala hadii laga dhaafo sigilaha oo aan u soo degno guda biirsay waxaa la yiri alliance baa ka dhaxeeyay asaga iyo rejiimka Maxamed Siyaad Barre waxay ahaayeen baa la yiri instrumentigii lagu burburinayay laguna caburinayay shacbigaas sheegta isaaqa la yiraahdo oo sheegta maxaa la yiraahdaa umbrellada maxaa la yiraahdaa SNM ma iska sheekada tahay mise hiraalita hadii la sheegayo haday sheeka tahay waa si dadku u sheegay laakiin waxa weyn ummad badan oo far badan oo Soomaaliyeed baa waqooyi galbeed deganeen joog jirtay waan ogeyn xaaladda jirta iyo waxay hiraalita tahay laakiin waxaana la sheegay wax ka jira ma jiro adiga waliga ma ku soo gaartay kelmadaas oo kale mise aniga kugu horeeyay wax ku yiraahdo maqlay laakiin wixii reality run ahaantu ma soo noqonayso waxa weey arinta waxna waa barbagaan ya waxna waa barbagaan waxna waa xaqaay inaga waxayna dilo waxa weey sistemaha oo dhan waxa administration naga kharib waxa weey barbagaan bay waxayna oo dhan ku socotay wax laga daba tagayay ya oo xaqaa'iq loo raadinay macni waxa weey wax xaqaa'iq oo la raadinay ma jiro ya suuqan ku gali baa loo oran jiro hebel waa sida suuq baa loo gali jiray anaga maqalay oo la nagu yiraahdo oo maxay la yiraahdaa gadabuurso waxa daba dhilifta haro aniga kula hadlaya barbaraan joogaan Maxamed Siyaad Barre wuxuu jeclaan jiray inuu dagaanada isku diro uu hubkiisu u dhiibo uu kala fogeeyo si cumrigiisu u dheeraado anaga tugu jala dagaal baa naga dhex socday maaragtay iyo boormaba maxay isaaq ana barbaraan taliye ka ah wala la xaaqay magaca lagu isaaqna waan kula soo baxay maxay taasi tahay wuxuu iigay waxay ahayd in cadaawada sii fogeeyo aan dadka laayo aan dhiiga badiyo dabadna maaragtay uu ilaa waka badna maaragtay iska horimaadkii imkiisi u gaadho ayaa ahayd uga dadana waan ugu hortagnay moogta waan ka hortagnay saacad baan ugu hortagnay marka horta arintan dad wax fogo maar dhexdooda yaala ma jirey sida idinka iyo inta isku dhooba loo hubeenay sida matalan STO qaar kood loo hubeenay ee loogu soo jeedinay dagaanka ku soo xiga ayuu intii dagaan isku xigtaba dabka isugu dhiibay uu maaragtay maanta dadka isku diriyay ninkan waa inaad xaqaa'iq raadsan anaga waxa weey gobolka awdal ayaan qabsanaynaa bilaha isaaq gobolka burca waa laga haysto faqashta ka haysata berbera faqashta ka haysata burco faqashta ka haysata ay ma weerarayne BBC da waxaad ka maqashay 100 goor awdal baan qabsanay awdal bay ku taamayeen dadkani dad daafac ku jiro aagooga ku jira war anaga maxaad naga rabtaa sal cali horta markaad kuwiina soo xoreysataan waa iska heshiinaynaa haddii ay jirto maaragta meela aan ka weeraray nimanka oo reer boorama alla ilaahay soo kale halka weerar la leeyahay taariikhdu nagu cadaanaysa laakiin hadday rag la weerarayo difaac ku jiro xataa xeebooga la qabsaday ya de waxaan ahayn barbagaanku inuu socodin xaqaaqiq wala raajo arrinta khilaafka SNM iyo SD kul jirto waxa weeye SNM ayadoo le gobolada waqooyi baan danaynayaa kaligeed bay baxday markay ay baxday Ethiopia tagtay wada tashi gadabuursi oo lama iman markay soo dhameysteen danahoogii ay axmaar la soo heshiiyeen ay hubkii ka soo qaateen ayay ma dadna raaci wada ma taqaan xoog baan ugu muqoonayna iyo may maxaan kugu raaca horta marka inta bixin Soomaaliya waa tashano anigu waxaan oran karaa ma taqaan hadii la soo sheego hal taako oo dhul isaaqa oo gadabuursi galay ama SNM oo meel degan oo ma taqaan reer awdal galay SDA gashay hala soo sheego waan ka baxay جل علي anigu intaas kelmad yar baan ku daraya waxay tahay taariikhdan iyo khilaafkan imika
سؤالها بدن نقوي ديسايو و SNM يو SDA لبدا خلاف كذا هي هدي عن وحي الكاغتا أنيقا شغاله هوري يانها meeshana waxaan u maleynayaa internet wax weydiinayso hadii jananka laga reebo inta kale aniga ugu daaweyn waxa weeye waa taariikh hore khilaafkani ka soo bilowday laga bilaabo politically hadii loo eego xagga siyaasadda 1959 markii ingiriisku ka caayay wuxuu sameeyay wax la yiraahdo shadow ministerada halka oo 9 bilood jiray حزبي مركز جري أو SNL أها أو طبعاً إساق وقبضنا سومالي دوي وضع كأسنة تنشن كيو حرية بالود دجالاي يا لودي بقيبي اللي يجا وضع برصدي قبل كأودل مركز قبل كأودل لمودرنين ديستريكت بورا مالودنا أي واحد لقسي حل وزير أنتي كله لاس عنو ما كان حل وزير يلا بوزير واحد لقسي أنتي كله يجا يشوت dadkii uu ka kacay dabcan feelinka iyo tensionku ka hadiyo goor wada jiray nin walba waa yani hadii dawladnimo la helay ama wasiir la qaybinayo muranka hadiyo goor wuxuu ka taagan yahay in si cadaalad sida dadku wada loo qaybiyo waxa la yiraahdaa halganka weyn ku soo wada jiray hal wasiir anagoo ka doodayna in la nooga badiyo 59 waa shadow ministers taasina waxa ay dawladku meel gaar ah sida tan imika oo 60 kala bedeli doono election markuu dhaco waxaan idin ma qabad halkii in wax laga qabto la eegay nin siyaasi oo weyn imika aan magaciisa ma sheegay waa si la ogyahay yiri jilibkiisa intuu soo qaaday wuxuu yiri ma jilibkaasi oo aan wasiir helin sidee gudabiirsi u helaa wasiir kiina sidii baa laga qaaday markaasay ka bilaabantay in meesha la arkay cadaalad darro inay jirto dawladdan dambe oo soo socotaana aniga wax cadaalad keenay halkaas laga bilaabay iyaguna gobolka dad iyo mutacalimiina ay u badnaayeen oo u dhashay way fikireen waxa la dajiyay maadaama marka ingiriisna la jiray oo hadiyo goor waad ogtahay yani gobolkaas iyaga SNL marka ah inuu ingiriiska hadiyo goor isku labnaayeen in jamhuuriyad weynba raadinteeda iyadoo dadku xasanaa iyagu ay markaasna xitaa federation ay doonayeen oo ina doonayeen in la isku darsamo annaga waxaan xisnay marka in jamhuuriyad weyn oo la dhaliyo kaliya aan qaybteeda ku heli karay waxa la bilaabay xisbiga aad maqashay oo la oran jiray USB taasina ay dhalatay in isbahaysi aanu la samaysano gobolka Laas Caanood district Laas Caanood si marka majority aan loo helin la noogu muqooniyo in federal la isku taago ama gooni loo dawladnimo loo helo tiibaan ku kacanay anagana bilownay wala asumay USB baa dhalatay electionkii baa la galay anoo soo gaagaabinaya labadayadii marka majority absolute majority way heli kari waayeen waxaana ku talinay in badweyn kulligayo Soomaali weyn aanu soo dhaxgallo ay dhalato Soomaali weyn taas way ka xumaaday ka bacdi halkaas la isaga qaaday propaganda iyo dacaayad waana ay hadiyo goor wadayeen ilaa imika ay soo gaartay hadda markii xarakadan la bilaabay hargeysa sida xamar bay ahayd wala wada dagana dadkoo dhan way ka dhaxaysaa loo kala batay waxaan nidhi dad isla jaaranahay strategically gobolka awdal waa hadii meesha uu maro in jamhuuriyadda Soomaaliyeed maraysa taasaan anaguna ictiraafsanahay saasayna ahaanaysa ninkii rabaadiid nalama ayaan tashan iyagoo nala tashan waxa la yiraahdaa awdal mashaakil male marka aynu dhalino dawladnimada laba bas iyo xaaji 50 baa loo dirayaa waynu soo ururinayna war maaha ka jooga wax nala tashada ma urtisuga leeyahay wabana niri wada way dhalatay waa iyagana xarakadii bay ku kaceen iyagoo marka isxaaqiya ay ku soo baxday markii hore welina toodii hore la daba jooga in gobolaysi ku kacaan annagana weligeey aan diidanayn waxaan niri annaga jamhuuriyadda caalankaas madooba noo caalan kii haya marka de kaasuun baba hayay dictatorka imika tagay iyun baana noo annaga mar aan raacsan khilaafka weyn waa nala safta iyo nala tashana yahay nalama tasha waana qursateen Soomaa idinka leewa ka baxa marka badda gasheen waa halkii
xalkii muxuu yahay maanta xalkii wuxuu yahay Soomaaliya oo dhan maanta isla halkii 60kii iyo ka hooseysa iyo ku soo noqotay wuxuu ku iman karaa xalku dad walba gobol buu leeyahay dad baa ka dambeeya cadaaladda waxa lagu qaybiyaa aan leenahay waxay tahay in loo ogolaado taqriir al-masiir waxa la yiraahdaa inuu dadka gobolku aayihiisa ka tashto isagu si cadaaladii ku jirtana loo qaybiyo xukunka oo iyagana la sii aayahooga inay ka taliyaan ka bacdina jamhuuriyaddu inay dhisnaato Soomaali weyn inay kala go'do ma ogolin kolla soo waxa weeye awdal marna ogolaan regional autonomy baa qabtaa adoo mar maya regional autonomy ma rabo yani in wixii yar oo mulka dadweynaha autonomy gobolkiisa loo daayo baananka cusbitaalada jaamacadaha hadduu samaysan karo gobolkii loo daayo injineer maxamed maydhana warsame kacdoonkan muxuu ka bilowday waxa ma iga taadaawan karaa sida la wada ogyahay dabcan kacdoonkan wuxuu ka bilowday dhibaatadii isdaba joogga ahayd iyo cadaadiskii farabadnaa ee dadka lagu hayay dadkaas oo dareemay in yani xuquuqdoodii iyo waxoogii oo dhan in yari ku intifaacayso iyagiina ka qatan maxamed siyaad barre waxa aqoon ma u lahayd adigu personal aad iyo aad waayo anigu ciidamadii horaan ahaa ilaa 61 baa ciidamadan ku maxaa ku tilmaami kartaa maanta waxaan ku tilmaami karaa yani kelidii taliye la iska qabtay oo dhaxalkeeda maalay yani aayihii xumaayu isagu geedkii u beertay mirihiisii oo xumaanta ah tilmaanta sharci ka bixin ka dhayna tilmaanta sharci ka bixin ka dhayna kulli taasun bay taas waa ogsooneed shalayna waa ogsooneed maantana waa qabtaa arrintaas maantana waan qabaa shalayna waa ogsooneed wax qabada maxaa ka qabatay wax astakaah samaysay والله واحد كتون إسقى أسميين بيرسونا مجرد سيدا دتكوا نوال با أو ونعبانا ونعباي لكن أنا كل واحد أنكو سعودي تي أهيد حديث كنبي كنا كجردي أو أهيد يعني حمان هدي هذا أركتو قعنت هذا كتوسي هدي أتكري ويدو أفك كتوسي هدي أتكري ويدو يعني أورك كنا بلكا وذلك أضعف الإيمان تاسون ما هنا نين مركز كلي تليو تليناي isagu gacantiisa wuxuu la tagayay haddaan sida nimanka kacdoonkan lagu beerin ma jirin kacdoonkani markii uu beerina isla hadiiba anagu waan ka goosanay waxaanan ku jiray jabhadihii dagaal gelinayay nimanka la dagaalaya taasoo yani aan ahayn adiga naftaada aan isku aragnay adiga oo marka journalist weyn ah oo ahaa journalistka uu kaliya loo ogolaa inuu dagaalka sawiro adnagu soo martay anagu jabhadii dagaal gelinayna isagina la dagaalayna isagoo wali wadanka ku jira waxa la yiraahdaa badanaaba guul darrada waa laga sheekeeyaa guushana waa lagu faanaa waa sax maxamed siyaad barre maanta waa jabay nin walbana wuxuu isku sheegayaa inuu mucaarad yahay nin walbana wuxuu isku sheegayaa astakeynayaan inuu ahaa dhegyacab maxaa shalay loo sheegi waayay waxa loo sheeli waayay taas yani jawaabteeda horena way ku jirtay waxaan u mayaa in aqliga fiican ama ninka hadduu geesi yahay waa inuu garan karo goorta ay wax u bisil yihiin ee uu sheegi karo ama uu wax qabashadeeda ku dhaqaaqi karo wixii oo aan kuu bislayn ama dadkii oo aan markaa u diyaar ahayn keliga haddii aad iska kacdo waxa waaye taaluka aadna kugu jirta dadkii aad wax u qaban lahaydna waxba u qaban maysid aad markii annagu aan aragnay in dadkii bislaaday in dadkii ay tahay waqtigan inuu kaco markaas aan dadkii tilmaamaha awalba hoos aanu ka wadnay ama aanu siinaynay aanu la kacnay dadkiina aanu hogaaminay laakiin haddaan keligaya ku bilaabi lahayn dadkii aan weli diyaar ahayn waqtigaas looma diyaar garoobin baan qabaa magacaago saddexan sariiq wuxuu Yuusuf Talaa Cali Yuusuf Soomaaliya waxay soo martay saadayaar ugu tahay awaalna u tahay marxalada qalafsan 22 sano oo burbur iyo baaba ay kala qaybina Soomaalidu inay aragti midaysan kala haato baabi iyo dhibaatooyinkii gaadhay ayna maalmahana ka faa'iideysato waqtigana ka faa'iideysato dabna caana daatay dabad waa la qabtaaye ay isdaba qabato ninka soo Soomaali uu qabaa waxay ku xidhan habka iyo meesha iyo maxay waqtiga uu baahada la sugaya maahe taa ninka siba in dhibaatadii laga soo waafsado oo maanta Soomaaliya dib loo dhiso
waayo eber baynu ka bilownay hadda lixdankii si aynu u bilownay baa hadda waddankii yahay markaa nin kastoo Soomaaliya wuxuu ku talinayaa in la isku wada tago xuduud iyo maskax la isu geeyo iyo maal sidii Soomaali maaragtaa dib loogu soo dhisay cudurku ma wuxuu ahaa cudur ka dhashay shacbiga Soomaaliyeed mise wuxuu ahaa mid abuuray kaligitaliska Maxamed Siyaad Barre hadda sida taariikhduba sheegayso kaligitaliyo had iyo gooraale maaragtaa waa nin kaligii tashanaya oo ummadan ku xukumay ruyo sharciga iska laabaya maskaxa wanaagsan ee dhiiran runta u sheegay karaahaysanaya inta kaliya daba dhilifka ah uu isagu xiniintooda taabto iyo maskaxdooda ayuu ku shaqaystaa marka sababta ugu weyn ee waddanka halkan maanta ku sugaya uu ku gaadhay waa kaligii taliyaha way tawashada ku jirtiin maxay tahay si aad dib dambe isku ugu tashaan soo celisaan kalsoonidii dagaankii wada dhaladkii dhaqankii Soomaaliya waxa maanta nin kastoo way aragay ku talinaya ama maskaxdiisa ku jirta waxa weey intii maxay ahaydey Soomaalinimo dareemaysa intii maskaxaan xalaala ee Soomaaliya in maxay ahaydey ay iska aragto iyaga oo maskaxdooda ka saaraya yaali dib noo dhigi jiray sida qabiilka oo aan bees soo dhigno wax la yiraahdo criteria ayaa waddankan maaragtaa maskax u noqon karay iyadoo ayaa waddankan Soomaali runaa ayaa waddankan xalaala iyadoo isla markaa lafteeda aarsigii hore la yareynayo waa in bees laga dhigaa arrimahaasi dabadna maxay ahayd sarta halka laga tulaa insaas ay la tahay nin walba wuxuu ku sheegaa inuu ka talinayo maslaxada shacbiga Soomaaliyeed soo celinta karaamadooda taas lafteeda waxa sheegi jiray raadiyaha Maxamed Siyaad Barre iyo maxaa la yiraahdaa taliskiisii shacbigu seebu idin kaleeyaa kalsoonidiina seebu idin aaminayaa maxaa garansiyo hoosin karaysaan waxaan siin karaynaa in kastoo kaligii talinayay laakiin mas'uuliintu kaalmay ku jireen mid waliba meel buu ku jiray mid waliba ummadda lafteeda tilmaamayso nabigu wuxuu yiri laa tajtamicu ummatii maca al-khada ummadaydu been isku muwaafaqday in waxa jiray maamul hayay oo madaxweynaha oo hadduu Maxamed Siyaad Barre awoodu waa inuu bedelo maamulkiisa Soomaalinimo iyo cadaalad iyo maxay ahayd jacayl ku maamulay baa jira mid waxa jira uu isagu sallaan ka dhiganay uu ku rabo doonay soo diloodanay ku rabada odanay janne ku rabada odanay seen ay samee uu sallaan ka dhiganay marka ummadda Soomaaliyeed marxaati hadalku marxaati ma noqonay waxa marxaatiya dadkii la maamulay ummadda Soomaaliyeed walba sida uu aragto loogu qoro magacaaga saddexan injineer Cumar Cabdullaahi Handi Mr. Handi waxaan ka maqalnay raadiyo Muqdisho in loo magacaabay dawlad ku meel gaar ah leh madaxweyne ra'iisul wasaare maxaad ka qabtaa dawladdaas ma tahay mid shacbiga kalsoonidiisa haysta dawladda anagu waxaan ka qabaa inay tahay dawlad ku meel gaar ah loogu waqtigan faasahan ay waa in la helaa wax maamula oo shirweyne qabanqaabiya ama si mucaarad isku yimaadaan inkastoo ina kalsoonidii dadka ay haysan haddana waxaan qabaa haddii uu kale taliyihii baxay waa in la helaa mataqaanaa maamul meeshii sii gaarsiiya inta dadka Soomaalidu ay ka tashanayaan si fikrad ahaan anigu waa loo baahnaa mataqaanaa cid kastaba haatee in dad sii gaarsiiya waqtiga haddii kale faakin baa dhacaya boob baa dhacaya dil baa dhacaya cid adduunyaha la xidhiidha oo dawladihii la xidhiidha oo u sheegta mataqaanaa inkii la saaray oo daawooyin iyo mucaamalad ku raadisa in la helo waa laga maarmaan hase haatee anigu ma aaminsani in ay kalsoonida dadweynaha ee shacabka Soomaaliyeed haystaan waxaa la yiri 69kii markii ay militarigu qabsanayeen xukunka ayaga laftooda waxay isku sheegeen inay dhisi doonaan dawlad shacbiya inay ahaayeen ku meel gaar 21 sano ayuuna soo daadihinayay kuwaasoo sidoo kale ma noqon karaan umaleyn maayo inay kuwani sidii noqonayaan ayaga qudhooda waqti bay qabsadeen 28 bari bay qabsadeen de xal ma keenin oo kuwa hore wadan dhisan bay qabsadeen wadan shacbi Soomaaliyeed midaysan bay qabsadeen jeeshkii oo isku mid ay qabsadeen had kuwani dhul burburay
iyo dad burburay iyo dhiiggii oo daadanaya qabsadeen sidiibuna dhiiggii wali u daadanayaa soomaalina weli ma heshiin ilaa soomaali isku heshiisana ma anfacayso iyagu ma waxay maamulayaan ama se xukumayaan meel maran kelmadda soomaali waxay noqotay mid shacbiga Soomaaliyeed lagu khiyaano waxay noqotay sadbursi waxay noqotay cadaalad darro waxay noqotay xukun boob bay noqotay seebaad Soomaali kelmadda Soomaaliya hay see karaamadeeda loo soo celinayaa shakhsi walba wuxuu yiraahdaa Soomaaliland in la helo midnimo in la helo isla markaasna wax barboos cad ku keenaya oo kule sidaan iyo sidaan ba wax lagu xalinayaa ma jiraan maxay kula tahay engineer aniga waxay ila tahay runtii waa runtaas aad sheegayso kelmadda Soomaaliyeed baa lagu dhuntaa waxa Soomaali waa qabaayil Soomaali gobolay kala degan tahay in nidaamkan la yiraahdo nidaamka federaaliga ah oo la keeno oo gobolka sababta balcayisa intuu ka taliyo handana la isugu yimaado mid lagu wada jiro haddii kale waxa dhacaysa in duruus badan waynu qaadano mataqaan rag badan oo xukunkii Maxamed Siyaad ka faa'iideystay ay waa tabihiina rag badan baa helay oo dadka kala qaybin jiray tabihii uu mataqaana ku soo jiray mataqaana layman gaara waa la bartay si looga baxsado aniga shakhsiyan Umar ahaan waxaan aaminsanahay federal system oo kale in ay noqon doonto mataqaana nidaam ay Soomaali wada xalli karaan magacaaga saddexan محمد عشان الله سريع محمد نور فاهية مستر فاهية كثير سنين جدي بانو ماينا عيدمada difaaca Soomaaliya Soomaa booliiska waxaan ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxa la yiraahdaa waabe waxa ahaan jiray baa la yiraahdaa dawladda saddexaad oo Afrika ee quwadda military taas waxma ka jiraan Masar markii laga reebo iyo Ethiopia Soomaaliya inay ahayd saddexaad kulli xoog waan lahayn xoogeeda xagee aad xoogeedii 77kii ka bacdi waa burburay waa isdhimay yaa burburiyayna laba sababood baan isleeyahay ayuu ku burburay waa mid xuduud shisheeye oo uu ku tiirsanaa sidii markii hore uu ahaa ma helin waa tan labaadee maamul xumo ayaa iyaduna dhacday shacbigu seebuu ugu guulaystay inuu ka cayriyo Maxamed Siyaad Barre taliskiisii asagoo haysta intaas oo awooda oo military shacbiga horta waxa askarigu ku dagaalama waa moral ciidankii markuu waji qabiil yeeshay ee uu kala soocmay ee raashinkii qaar bursadeen qaar yareysteen waad garan kartaa marka moralka tablaha caadiga inuu hoos u dhacay mar haddii moralkii hoos u dhacayna talabaad askartu dee wax ka tirsantay shacbigooda ka tirsanaayeen waxyaabaha dhacayaana way saameynayeen marka askari niyadiisu aanay adkayn dagaal firfircoon ma geli karo mid qabiil lagu dhisayna dagaal firfircoon ma geli karo taas ayaa sababtoo ah